بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa Axmed Qadar Maxamed Dabar, xildhibaanka xaafadda Islii ee dowladda hoose ee Nairobi County. xaafadda waa ka wareejin sidii loo waardiyeynay, qorin waa lagu waardiyeynay, sujuudna lagu waardiyeynay. taas waxay ku tusaysaa in xaafadda aad u kubacdatay, xaafad laga warhayo dowladda si hoose iyo si koro looga warhayo. marka waxaan leenahay hala shaqeysto berito dowladda amni ku filan ay keentay, ciidamo ku filan, kuwa dharcad iyo kuwa kale oo labisanba waa joogaan. xaafadda way sugan tahay. annaga ma la rabo cabsi in yar iyo jaxanjax inaan tusno. dalka dhaqaalaha meesha laga maamulo koowaad iyo labaadaan ahnaa. wixii annaga nagu soo duulona waa iska dhicinaynaa, wixii annaga nagu soo xadgudbina kuma xadgudbino. marka shacabka Soomaaliyeed aad iyo aadaan ugu mahad celinayaa. xaafadda iyo dalka dhan mudaharaadyo far badan ayaa ka socday. hal mar ma dhicin xaafadda Islii wax qalaalanso ama mudaharaad kama dhicin. taas waxay ku tusaysaa shacabka Soomaaliyeed ee xaafadda ku nool inay yihiin shacab shaqaystaan, shacab oon shughul ku lahayn qalaalanso, oon shughul ku lahayn boob, oon shughul ku lahayn dhac, oo ayaga ganacsigooda iyo howlahooda iyo danahooda qaaska dad ku mashquulina yihiin. waddanka dhanna hadalhaynta yaa nala haystaa oo ka mid tahay Soomaalidii way iska shaqaysanaysaa, waxyaalahan waxba kama laho oo mudaharaadka iyo kacaanka dalka jira waxba ku mashquulo. anaga waddanka amnigiisa ugu sarsare ayaana lagu aaminay, madaxweynaha dalka nagu aaminay, dowladda Kenya nagu aamintay, dad waddanka u dhistay oo waddankan madax ka nahnaa in waddanka aan tusno mitaalo in lagu soo qaato. dadkii way shaqaysanayaan, ganacsi ugu socdaa, waa shay dalka sharaf u ah, Soomaalidana sharaf u ah. marka aan shaqaysano, aan soo baxno, howlaheena iska wadano, ciddii annaga nagu soo xadgudubtana waa iska dhicinaynaa. diintaa qabtaa, dowladda Kenya qabtaa, dastuurkaa qaba. qofkii xoolahaada iyo naftaada soo weeraro inaad iska dhiciso, diintaa qabtaa, sharcigaana qabaa. marka annaga aan shaqaysano, aan soo baxno, howlaheena aan wadano, amni nagu filan waa joogaan. xaafadda dowladda way keentay oo weli xataa amniga dadka ugu sarsare amniga hayana waa dadkeeni. waad ka